bukaanada ku jira isbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood ayaa la soo gaarsiiyay deeq xoolaha si ay ula farxaan dadka muslimiinta ah ee dunida daafaha caalamka ku ciidaya maalinta berrita deeqdan ayaa waxaa soo gaarsiisay gabadh ka mid ah gabdhaha qurba joogta ee deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn. Farxiye Jaamac Cabdibile waxayna ugu talagashay inay dadkaasi ku farxaan, waxaana deeqdan xoolaha lagu wareejiyay maamulka cisbitaalka magaalada Laascaanood iyadoona ay ku wareejiyeen Farxiye Jaamac Cabdibile iyo Cali Cabdinuur Xaashiyo guddida cisbitaalka magaalada Laascaanood. deeqdan ayaa waxay noqonaysaa mid ay si weyn ugu farxaan dadka danyarta ee masaakiinta aan waxba haysanin ee ku jira qaybta TB-da ee bukaan-jiifka cisbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood oo had iyo jeer ay soo caawiyaan gabdhaha daafaha caalamka jooga ee deegaanadan u dhashay. bismillaahi raxmaani raxiim waxaanu la guddoonsiinay lacagna guddoonsiiyay Farxiye Jaamac Cabdibile aniga oo ku sameystay wasaaradda caafimaadka gobolka iyo xubin ka mid ah boardka cisbitaalka dhexe Laascaanood Cali Cabdi Xaashi alxamdulillah waanu ka guddoonay lacagtaas oo aan u soo siinay ari ay cunaan isticmaalaan inta iidaha aad baan ugu mahad celinaynaa Farxiye Jaamac Cabdibile iyo dadkii kala soo shaqeeyay ee u dhashay madaqadan gobolka Sool aad baan ugu mahad celinaynaa ilaahay waa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam Farxiye Jaamac Cabdibile waxay soo gaarsiisay $500 oo ay ugu talagashay inay ku ciidaan bukaan-jiifka isbitaalku waxaan u soo siinay ari insha Allah ta'ala baaqi uu soo harayna waa kan waxay siisan doonaan khudrad bay siisan doonaan waa hadii aan ka dhig raashinkii dareegana uu yaalaa baaqi idin soo harayna waa kaas waxay siisan doontaan insha Allah khudrad ay siisan doonaan aad baan uga mahad celinaynaa iyada iyo dadkii la soo ururiyayba waxayna Farxiye insha Allah ta'ala waxaan ka rajaynayaa inay halka dadka si kordhiso أول ياسمين بها خيرها كسياسي شاعد بلا هذه فرحية أنا نقول صبرت وحلينا ما شاء الله دوا والله إسكاشن دونا إن شاء الله تذكروا عن كعسينا سياسة كروس عاويان تذكر بكان شيف كوحيه الكران أساسيان يلا تذكر داد وجود داران بكان شيف كسبتار كلاصعانات قبل ده أنا وحاول أن إلهي هيدين بركة وبتك إلهي هيدين حفظه إله أود اللي هالك النبض كأنه ما أنت يا مهذا ودن له وحان الرباعين عن محيط ولا هذا نقار على عبد النور حاشي على أنتي خلاص وش قيسة بلاي أنتي خلاص وش قيسة ودن العقد وحن كسر يقرب شوكتا ولا تيسول أنتي كقيب قادة إلهي كأبال مريو أنا جانا إلهي وحن كبري إلهي نافذ ذيو وحيد دم مستقبل كأن ربنا إنه نقابلنا دكتورك يدك ولا شيء من دقة السول وحن كلا ربعنا جارسيو dadka u dhashay halkan magaalada Laascaanood ama gudahaan Sool inay ka qayb qaataan waxtarka dadkooda buka iyo dhakhtarka iyo wixii u baahan in la caawiyaba waana mahadsantiin kulligiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baan ugu farax gelisay waxaanu aad ugu mahad celinaynaa dadkaana soo xusay ee soo caawiyay in ilaahay rabbigii qaadirka ahaa ka abaal mariyo yaanu ilaahay ka baryaynaa bilaa wax baxsado oo ka wanaagsanina ma jirto waxaanu ugu ducaynaynaa Farxiye Cabdibile in ilaahay khayr siiyo iyadiyo ubadkeeda iyo waalidkeedaba sidaasaanu iyagiyo kuwa la garbeey la socdaba sidaasaanu ugu ducaynaynaa calool baanu ugu ducaynaynaa ilaahay risaaqada ha waasiyo ubadkana ilaahay ha u barakeeyo aakhirana cadaabka ilaahay ha ka cafiyo عبد الكريم نورل، Somali Channel، مقالة Laascaanood.